Nabi Ayuub calayhi salaam waa mid ka mid ah nebiyadii Alla soo diray. Nabi Ayuub naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu ka soo jeedaa wiilow Nabi Isxaaq dhalay ee Ciis oo aabbo u ah Roomaniska. Nabi Ayuub wuxuu caan ku yahay samirka iyo adkeysiga aad u cajiiba. Nabi Ayuub naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu Eebbe siiyey dhallinyarnimadiisii uwad badan 14 carruur ah, xaas fiican iyo xoolo. Sidoo kale wuxuu lahaa dad badan oo u adeega kana shaqeeya hantidiisa. Nabi Ayuub wuxuu Eebbe ku manaystay beero waaweyn oo ay ka baxayaan dhammaan qudrada kala duwan, waxaana u dheeraa intaas nebinimo iyo cibaado badan. Waa nolol raaxo leh oo qof kasta ku hamiya inuu ku noolaado. Muddo 70 sano ah ayuu ku noolaa nimco iyo barwaaqo, balse hal mar ayaa waxaa isbedelay xaaladii Nabi Ayuub. Waxaa asiibay xanun faalig 4 lugood kaga habsaday oo ka kici waayay. Kadibna xoolihii shaqaalihii ayaa ka baxay. Sidoo kale waxaa ka geeriyooday dhammaan ubadkii uu dhalay oo mid u dhintay. Nabi Ayuub naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee asigoo dhulka yaal oo xanuun daran haya ayaa loo sheegay in mid ka mid ah ubadkiisa oo dhintay, xoolihiina uu khasaaray. Waxaad qiyaastaa aabba dhalay 14 carruur ah oo dhammaantood muddo yar gudahooda ku geeriyoodeen. Waxaa ehelkiisa ka soo haray xaaskiisa oo ahayd haweeney fiican, waxayna noqotay gabar faqiir ah, halkay shalay ka ahayd gabar hanti leh. Waxay danta ku kaliftay inay shaqo tagto oo u qudmayso guryaha si ay ula soo baxdo nolol maalmeedkeeda. Nabi Ayuub naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waa samray, waxa uuna ahaa addoon aan ka caajin digriga Eebbe. Nabi Ayuub jirkiisa waa idlaaday oo waxaa la dhahaa qayb jirkiisa ka mid ah ayaa marba sii go'aysay. Taasna waxay keentay in dadkii ka agdhabaa ay ka hajiraan markii laga reebay xaaskiisa oo iyada ku mashquulshay daryeelkiisa iyo cuntisiintiisa saygeeda. Maalin maalmaha ka mid ayay xaaskiisa ku tiri Nabi Ayuub, maxaad Eebbe u bari weyday ha kaa dulqaaday dhibku ku haleeshay? Nabi Ayuub wuxuu dhahay, ma xasuustaa inta sano aan caafimaadka qabay, xoolana haystay? Xaaskiisa waxay ku tiri, waa 70 sano, waadna caafimaad qabtay ood ku nooleed nolol barwaaqo leh. Wuxuu dhahay Nabi Ayuub, Eebbe wuxuu ii barwaaqiyey 70 sano, miyaanan dhibta u samareynin 70 sano kale? Maalintii dambe ayaa laba wiil oo la dhashay Nabi Ayuub ayaa dhahay, Ayuub dembiyadii uu galay ayaa lagu ciqaabay. Markaasuu Nabi Ayuub maqlay, kadibna wuxuu baryay Ilaahay oo dhahay, Eebbow haddii aad og tahay inaad seexda haween anoo og in cid beledka ku nooli baahan tahay i rumayso. Eebbana waa uu rumaystay. Haddana wuxuu yidhi, Eebbow haddaad og tahay inaan 2 shaati gurigayga dhigtay, iyadoo aan ogahay ruux baahan oo aradan inuu beledka joogo i rumayso. Eebbana waa uu rumaystay mar kale. Labadii wiil ee walaaladiina way maqleen markuu Eebbe rumaystay. Nabi Ayuub calayhi salaam waa uu u samray muddo 18 sano oo dhibta marba marka ka sii dambeysay ay ku sii kordhaysay. Ugu dambeyn xaaskii Nabi Ayuub waxaa loo diiday shaqadii, dadkiina albaabadii ayay ka soo xirteen. Kadib markay aragtay inay wax cunto ahaynin, ayay iska jartay tinteedii oo iib geysay. Markaasay ku soo gaday cunto si ay saygeeda u siiso. Cuntadii ayay u keentay Nabi Ayuub. Markaasuu weydiiyey xaaskiisa meeshii ay ka keentay cuntada, sababtoo ah waxa uu ogaa in shaqada laga ceeriyey. Xaaskiisa way ka warwareegtay inay u sheegto warka, laakiin Nabi Ayuub ayaa ku adkaystay kuna celceliyey. Kadibna way u rantay una sheegtay inay gada timaheedii. Nabi Ayuub markuu arkay in dhibta meel aad u xun gaartay, ayuu Eebbe weyne baryay oo dhahay, Eebbow dhibta way i taabatay, adiguna waxaad tahay Rabbi naxariista. Nabi Ayuub calayhi salaam waxa uu nadiray inuu 100 ul ka jaro xaaskiisa haddii uu caafimaado. Maalintii dambe ayaa farajkii Eebbe yimid, waxaana la faray Nabi Ayuub inuu lugihiisa dhaqaajiyo, kadibna istaago oo ku qabaysto biyo ka soo burqamaya gurigiisa. Sidoo kale waxaa la amray inuu cabo biyaha. Markuu qabaystay ayuu ka caafimaaday xanuunkii jirka sare, kadibna waa uu cabay biyaha. Markaasuu bogsaday xanuunkii jirka gudihiisa, waxaana uu isku bedelay nin dhalinyaro ah. Xaaskiisa ayaa timid guriga, wayna weeday saygeeda. Markaasay mooday in bahal cunay. Waxay aragtay nin dhalinyaro ah oo aad u qurux badan. Markaasay weydiisay inuu arkay Nabi Ayuub. Ninkii waxa uu yidhi, Ayuub waa aniga oo waxaa i shaafiyey Eebbahayga. Farxaddii damaashaad kadib waxaa Eebbe qadaray in xaaskuna da' yaraato oo dhalinyaro ku noqdaan labadooduba.
sidoo kale wuxuu Eebbe u soo celiyey ubadkoodii, beerihii, shaqaalihii dhammaantooda. Waa nimco iyo naxariista Eebbe, waxaanu ku guulaystay cidda samirka. Nabi Ayuub waxaa loo dhalay ubad ka badan kuwii hore iyo xoolo ka badan. Waxaa la sheegaa in dahabka samada ugu soo dhici jiray Nabi Ayuub iyo ehelkiisaba, waxayna ku noolaayeen nolol barwaaqo ah. Eebbena waxa uu u ballan qaaday nolol ka raaxo badan maalinta qiyaamo.